Soomaalida wax la idin carbinaya idin caawinaya cilmi inay idin barataan oo idin noqon xawaariyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo barbaarsama channel oo had iyo jeer aan idinka soo baahiyo barnaamijyada ku saabsan barbaarinta iyo tarbiyadda wanaagsan ee caruurta, innaga oo mararka qaarna dhex raacina dhiirigelinta hooyooyinka, maadaama hooyooyinku yihiin kuwa inta ugu badan caruurta gacanta ku haya. haddii iyaga aan la dhiirigelinna aanay tarbiyadda wanaagsan iyo barbaarintu suurtagal noqonayn. haddii aad nagu cusub tahay, subscribe saar si aad uga mid noqoto waalidiinta iyo asxaabta nagu xidhan. haddii aad hore noola joogtina waad ku mahadsan tahay joogitaankaaga. gambaleelka furo si aad uga warhayso hadba barnaamijka cusub ee aanu soo kordhino. markan iyo mawduuceennan waxa aynu kusoo qaadanaynaa teenage-ka waxa loo yaqaano, ama xilliga ay caruurtu gaadhaan 10 jir iyo wixii ka sarreeya. waxa ay galaan marxalad ka duwan tii hore. waxaa laga yaabaa waalid badani in ay ku dawaqsan yihiin ama ay isweydiinayaan muxuu yahay ilmaha isbeddelkan ku dhacay. waalid badanna ay u arkaan in ilmahooda intii uu yaraa ee uu caawimada saayidkaa u baahnaa markii ay soo koriyeen kana soo saareen xaaladaasi markii uu xoogaystay uu yahay mid ku kibraya, ku madax adeegaya, amaba dhaqan xun iyo si aanay iyagu rabin ula yimi. haddaba waxaan doonayaa in aan yaro sharaxno ama aynu eegno maxay tahay isbeddelka xilligan iyo isfahmi waaga inta badan ku yimaada waalidka iyo caruurtooda. waxaynu arkaynaa marar badan hooyooyinka caruurta laga qaaday in ay u badan yihiin waalid uu ilmahoodu dacweeyey markii uu soo gaadhay da'dan 10 jir, 9 jir iyo wixii ka weyn. haddaba maxaa keena ayaad u malaynaysaan? sababta ayaan doonayaa in aan idinla wadaago ugu muhiimsan ee inta badan problemka ama isfahmi waaga dhex keenta waalidka iyo ilmahoodu marka uu soo gaadho xaaladda isbeddelka teenage-ka. marka uu xaaladaas ilmahaasi galo waxa uu noqonayaa ama uu dareemayaa in uu yahay qof weyn. tan koowaad ee haddaba markiiba keenaysa isfahmi la-aanta ayaa waxa ay tahay waalidka qaar ayaa ilmaha loo baahnaa in ay 10kii sano ee ugu horreeyey ama 7dii sano ee ugu horreeyey tarbiyaddii uu qaadan lahaa xilligaas ee loogu talagalay ay ku baraarugaan marka uu ilmahoodu gaadho 10 jir iyo wixii ka weyn, iyaga oo isku daya in ay bilaabaan in ay xilligaas tarbiyadeeyaan. balse taasi suurtagal ma noqonayso, waayo waxa soo lumay waqti badan oo 7 sano ama 10 sano ah, kaas oo loo baahnaa in ilmaha meesha aad doonayso 10 jir inuu joogo loo soo tarbiyadeeyo ama loo soo carbiyo. sidaas ay tahay ilmihii 10 jirka ahaa ama ka weynaa ama 9 jirka ahaa waxa uu dareemayaa isagu inuu yahay qof weynaaday. waxa aanu aad u dhibsanayaa xaaladda koowaadba in hooyadu ay weli ula dhaqmayso ama aabbuhuba sidii ilmo yar. xaaladaha koowaad ama waxyaabaha koowaad ee uu ilmahaasi aad u karahsado, diiqadana ku keena, mararka qaarna gaadhsiiyo in uu naco waalidkiisa ama karho, waxa ka mid ah waxyaabahan aynu soo sheegi doono ama tilmaami doono. intaanan taas u gudagelin waxaan doonayaa in aan halkan ku sheegno inta la og yahay. haddaba goormo ayay si rasmiya u bilaabantaa xaaladani? inkastoo caruurtu ay kala qaangaadhi og yihiin, inkastoo inaan odhan karin qaangaadh, haddana marka aynu leenahay teenage, ilmihii waxa uu ka soo baxay ilmo yar inuu ahaa. sida afdhajka ama wadankan Jarmalka afkiisa marka ugu horeysa ilmuhu waa baby,
wuu kasoo baxaya, wuxuu noqonayaa kleiner kin kadibna wuxuu noqonayaa ilmo, isagoo weli ilmo ah ayuu haddana gelayaa xaalad isbedel oo pubertate wax la yidhaahdo ayuu gelayaa. waxaan rajaynayaa in sidaa aan u sharaxaya aad fahmi doontaan, maadaama ilmuhu markuu xaaladan galo af soomaali si sax ah oo aan ugu turjumi kara ama idinku sheegi karo aanan hadda si rasmiya u haynin. waxaan rajaynayaa ciddii kelmaddaas heli karta in ay commentka kusoo qoraan waxa soomaalidu u yaqaanaan marka uu ilmuhu soo gaadho 10 jir iyo wixii ka weyn. inamada iyo hablaha una waa ay ku kala duwan yihiin xilliga ay gelayaan marxaladan ama uu ku imanayo isbeddelkani. hablaha inta badan waxa uu ku bilaabmaa xilli hore, waxa uu ku bilaabmaa 9 jir iyo wixii ka weyn. 10 jir ilaa 9 jir ayuu hablaha ku bilaabmaa xaaladani. xaaladan isbeddelka ah inamada waxa ay ku bilaabantaa inta ugu badan 10 jir ilaa 12 jir, waxa aanay qaarkood ku gaadhaan ilaa 21 jirkooda, halka habluhu marka ay ku bilaabanto 9 jirka ama 10 jirka ay ku dhammaato xaaladan ama marxaladan ay kaga baxaan marka ay yihiin 18 jir. inkasta oo la kala duwan yahay oo horena looga kala bixi og yahay, marka horena ay kusoo kala horeysa caruurta oo qaar ka mida 8 jirkaba ay ku bilaabmi karto. haddaba maxay tahay isbeddelkan ilmaha ku yimaada xilligan oo kale? isbeddelkani waxa weeyaan ilmihii koritaankiisii ayaa bilaabmay, waxa aanu jirhkiisa ama maskaxdiisu isu diyaarinaysaa in uu noqdo qof weyn. waxaa ku bilaabmaa sida la sheego ama la tilmaamayo, maskaxdooda waxa ku socda koritaan ay culimada nafsigu ku tilmaamaan sidii in meel la dhisayo oo kale. calashaan waad aragteen marka la dhisayo guri in shaqo badani ka socoto, sanqarh badani ka socoto, hawl badan iyo dhismo badanina. haddii aad ag marto guri la dhisaayo aad dareemaysid meeshaa saxmadda iyo dhaqdhaqaaqa iyo hawsha ka socota. taas ayaa haddaba lagu tilmaamay caruurta marka maskaxdooda xilligan ay marayso. dhaqaaq aad ugu fara badan iyo dhismo aad u badan ayaa ku socda maskaxdooda. dhanka kale marka maskaxiyan laga yimaado jir ahaan loo yimaado, waxaa jirhkooda ku socdaa isbeddel aad iyo aad uga duwan koritaankoodii hore, kaas oo hormoonadoodu aad isku beddelayaan, isuna diyaarinayaan in ay noqdaan dad waaweyn. dhinaca hablaha waxaa kusoo biiraya in ay yeeshaan naaso oo kale ama ay dareemaan, halka inamaduna ay shiirkoodu ama dhididkoodu isbeddelayo ama ay dareemayaan in ninnimo oo kale. haddaba waxaasoo dhan oo isbeddel ahi waxa uu keenayaa in dabeecaddoodina ay aad isku beddesho. dhinaca kale waxaa la ogyahay in marka xagga caafimaadka laga eego jirhkoodu ay soo deynayo dheecaano fara badan oo sida saliid ah, ay ku tilmaamaan culimada caafimaaddu saliid oo kale, magaceeda afdhajka talc la yidhaahdo. markaas saliiddaasi ay ka qayb qaadanayso in ilmaha uu ku soo baxaan timo oo kale sida kilkilooyinka, maxay hayde dhinaca hoose iyo waxyaabaha la mid ah. dhinaca kalena ay lagu arko xilligaas da-doodu marka ay marayso inay kasoo baxaan finan fara badan wejigooda oo kale, kuwaasi oo aan wax xanuun ahoo kale la xidhiidhin, balse ay keenayaan dareerayaashaasi iyo saliidda iyo dheecaanadaasi soo deynayaan jirhkoodu, taas oo la xidhiidha xataa neerfahooda. waxa ay galaan haddaba marka ay sidaa tahay in dabeecaddooda aad iyo aad isku beddesho, in ay noqdaan qaar neerfisa oo mar kasta diiqadoonaya,
in ay noqdaan qaar aad u daalan oo markasta dareemaya daal fara badan ama uu ka muuqdo sida niyad jab oo kale. Khaasatan hablaha inta badan waxaa ku yimaada dhinacaasi niyad jabka ahayd muddo moraalkooda inuu hoos u dhacayo. Taasoo kale waxa ay keenaysaa haddii waalidku aanu ka qayb qaadanin oonu caawinin inay ku timaado kalsoonidooda oo aad hoos ugu dhacda, iyagoo had iyo jeer ku noolaada xaalad murugo oo kale dareema iyo waxyaabo lamid ah. Halka inamada uu ku badan yahay in ay noqdaan qof ku soo taagan waalidka oo aggressive ah ama nervous ah markasta. Waalidkii haddaba loo baahnaa xilligan oo kale in uu sidaas u fahmo ilmihii oo uu xaaladiisa dareemo islamarkaana dhinac istaago, ayaa waxa uu waalidkii islamarkiiba inta badan maskaxdiisa kusoo dhacaysa inuu ilmahani weynaaday, kadibna uu isaga falcelin aan fiicnayn ama kibir oo kale ula imanaya. Inta badanna Soomaalida aynu ka maqalno caruurtii way igu kibreen, maxay hayday iyo waalid caasi bay igu noqdeen iyo waxyaabo lamid ah. Xaaladani haddaba ma aha miduu ilmuhu weligii ku jiri doono, balse waxay u baahan tahay in loo dulqaato oo la fahmo xaaladan marka uu ilmuhu ku jiro. Maxaa loo baahan yahay waalidku inuu sameeyo, maxaase loo baahan yahay inuu iska ilaaliyo, ayaynu ku eegaynaa barnaamijkeennan. Mararka qaarna waxaa la arkaa iyada oo hadalka waalidku oo dhami caruurtaas ay ula muuqdaan marka ay xaaladan ku jiraan sidii waxaan macquul ahayn ama laga khajilayo oo kale. Haddaba waalidku ma aha inuu u arko waxay iyagu samaynayaan waa wax ay ku keenayo koritaankoodu. Marka ugu horeysaba waalid ahaan waxaa lagaa rabaa haddii aad doonaysa xilligan oo kale in adiga iyo ilmahaaga ku jira xaaladan aan ka sheekaynayno ee teenage baan iska odhanayaa insha Allah, ku jira xaaladan in aad xiriirkiinu fiicnaado oo aad isfahantaan. waxaa loo baahan yahay inaad fahanto horta inuu qofkan koritaan ku socdo iyo xaaladiisu halka ay marayso. Marka aad fahanto waxaa laga yaabaa waxyaabo badan oo ilmahaaga ka suurta galow sameeyo in aanay kula muuqanin wax weyn ama aanad dhibsan, adigoo ku dhaafaya xaalad buu ku jiraa, waayo wixii ayaad fahantay. Talabaad, waxaa loo baahan yahay in ilmahaasi loo muujiyo ixtiraam fara badan si adigana uu ku ixtiraamo. Tusaale ahaan, albaabka qolkiisa ilmahaas xilligaas leh da'daasi leeg 10 jir 9 jir iyo wixii ka weyn haba yaraatee adigoo aan gargaraacin inaanad iska gelin. Haddii ood aragto adiga oo albaabkiisa iska galay ilmahaaga, inantaada ama inankaaga, isla markaana uu ilmahaasi ku karaxsanayo, ha u qaadanin inuu isagu khalad kaa gelayo, balse adiga ayaa khaladka bilaabay oo galay. Isla markaana waxaad heshay falcelinteedii, waayo xilligan oo kale ma jecla in afaarahooda yacnihii khaaska ah sida qolkooda, maryahooda iyo waxyaabaha naftooda u khaaska ah in la dhex galo ma jecla. Dhanka kale, ha ku mashquulin timaha siday u feedhayaan iyo dharka ay xidhanayaan inta badan, waayo noloshooda oo dhan sidan ma u labisan doonaan, laakiin waxaa laga yaabaa inay mararka qaar tijaabiyaan dhar ama si timaha loo xiirto ama midab la mariyo oo adigu hore aanad ugu aqoonin. Taasna waxay ka mid tahay xaaladda ay marayaan oo ah in ay wax badan tijaabiyaan marka ay waqtigaa ku jiraan. Marka ha ka soo qaadin haddii inankaagu timaha si yaroo kale u xiirto in uu khalad weyn sameeyey. Haddii inantaadu ay timaha midab mariso ama ay wax kale dhar kale oo aanad hore ugu aqoonin xidhaan, markiiba ha la dagaaltamin oo dhinaca xun ha ka eegin, balse isku day intaad la fadhiisato
in aad fahansiiso dharkan dhibta uu leeyahay. haddii aad adigu markaa arkayso dhib ama wax u khalad ah oo dharkaasi ka muuqda. waxyaabaha ay aad u necab yihiin xilligan oo kale carruurtu waxaa ka mid ah in hooyadu markasta weydiiso inuu gaajoonayo oo u baahan yahay inuu wax cuno iyo in kale, isaga oo u arkaya isaguba inuu qof weyn yahay oo haddii uu rabo inuu wax cuno iyo haddii aanu rabin uu kala garanayo. taasina mararka qaar aynu odhan karno way inagaga saxsan yihiin, waayo qofka 10 jirka ahi wuu yaqaanaa xilligu gaajoonayo iyo xilliga kale. qof kastana naftiisa isaga ayaa kaa yaqaana. marka waalidku waa inaanay xilligan oo kale inta badan ku celcelinin carruurta inay wax cunaan ama weydiinta in ay gaajoonayaan iyo in kale. waalidka Soomaalidu inta badan marka uu ilmahoodu soo gaadho da'dan oo kale uma yaqaanaan ama ma fahansanaa in uu u baahan yahay weli naxariis, in laabta la geliyo, in la dhunkado iyo in loo soo dhowaado. haddaba waxa aan kuu sheegayaa in ay tahay xilliga uu ugu baahi badan yahay ilmahaagu markuu 10 jir gaadho ilaa 12 jirkiisa, in ay tahay xilliga uu ugu baahi badan yahay, sida uu 3 sano ee ugu horeysa aad iyo aad ugu baahan yahay. markana ay tahay xilliga ay tahay inaad laabta geliso, markasta dhunkato, markasta u muujiso in aad jeceshahay ama u sheegto. dhanka kale waxaa loo baahan yahay in aad ilmahaaga u muujiso ammaan badan iyo naxariis. xaaladan uu ku jiro waxa uu aad iyo aad u raadinayaa naxariis badan. ma aragteen in badan waalidka ama hooyooyinka ama aabbayaasha oo ka cabanaya in ilmahoodu uu ka jecel yahay saaxiibadii oo kale, in ilmahoodu uu qof kale ka jecel yahay. sababtu wax kale ma aha, saaxiibadood waxa ay ku ag dareemaan, walow aanay ahaynba saaxiibadaasi qaar wanaagsan oo mustaqbalkiisa u fiican, haddana waxa ay ku dareemaan inay ku nafisayaan oo kale. haddii uu waalidku noqdo mid qaylo iyo canaan badan, waxa ay ka doorbidayaan in ay la joogaan qof kale, in ay ka meeraystaan guriga, waayo ma ku arkayaan waxa ay ugu soo hirtaan ama ugu soo cararaan. waxaa jira waalidiin badan oo xilligan oo kale carruurtooda ama sideedaba ka mamnuuca ama aanu ogolayn in saaxiibadu gurigooda ay ku soo booqdaan. haddaba waxaan doonayaa inaan kuu sheego, haddii aad u ogolaan weydo saaxiibada ilmahaagu, inantaada ama inankaagu in ay gurigiina soo galaan oo ay idinla joogaan, in ilmahaagu uu tegayo meelo kale oo aanad adigu markaa ogeyn waxa lagu qabanayo ama waxa ka jira. inaad haddaba ogolaato in ilmahaaga gurigiisa loogu yimaado waxa ay kaa badbaadinaysaa wax badan. in aad ogaato ilmahaagu xaaladda uu ku sugan yahay iyo cidda uu saaxiib la yahay. markaa isku day in aad soo dhoweyso asxaabta ilmahaaga xilligaasi marka uu ku jiro, isaguna waxa uu kuu hayn doonaa ixtiraam fara badan marka aad soo dhoweyso dadka isaga ka socda. haddii aad aragto ilmahaaga oon yeelahayn sida aad adigu rabto marka uu da'dan yahay 9 jir, 10 jir iyo wixii ka weyn, haddii uu yeeli waayo sida adigu aad rabto, adigu ha yeeli waayin sida isagu uu rabo. soo daadeg, isugu yimaada labadiinuba meel dhexe. sidaas waxaa ku fiicnaanaya xidhiidhka adigiyo isaga idinka dhexeeya. xilligan waa la dhaafay xilligii haddiiba aad samayn jirtay mar walba iyadoo ay tahay in la dhaafo. haddana khaasatan xilligan ilmahu ma ogola
qaylo, hanjabaad iyo ciqaab midnaba. marka inta aad ka taxadiri karto ka taxadir waalid ahaan. haddii aad aragto ilmahaaga oon yeelahayn sida aad adigu rabto marka uu da-dan yahay 9 jir, 10 jir iyo wixii ka weyn, haddii uu yeeli waayo sida adigu aad rabto, adigu ha yeeli waayin sida isagu uu rabo. soo daadeg, isugu yimaada labadiinuba meel dhexe. sidaas waxaa ku fiicnaanaya xidhiidhka adigiyo isaga idinka dhexeeya. xilligan waa la dhaafay xilligii haddiiba aad samayn jirtay mar walba iyadoo ay tahay in la dhaafo. haddana khaasatan xilligan ilmahu ma ogola qaylo, hanjabaad iyo ciqaab midnaba. marka inta aad ka taxadiri karto ka taxadir waalid ahaan. ta ugu dambaysa, waalidka oo dhan ama waalidku siduu u badan yahayna uu sameeyo isla markaana ay isku seegaan ilmihiisa ayaa ah kaantaroolka faraha badan. waalidka aad u kaantaroolo ilmihiisa waxaa la arkaa in ay noqdaan qaar isa seega. haddaba xilligan ilmahaagu ma u baahna inaad kaantaroosho, balse wuxuu u baahan yahay in aad garab istaagto oo aad caawiso. waxa uu u baahan yahay in aad ku kalsoonaato oo aad u muujiso in aad ku kalsoon tahay. haddii aad ilmahaaga u sheegto in aad ku kalsoon tahay inuu wax kastoo xun iska ilaalin karo, iminkana uu joogo da-dii uu isagu naftiisa ilaalin lahaa, waxaa la arkaa ilmahaasi inuu waxyaabo badan oo uu ka suurtogeli lahaa ama ku dhici lahaa kalsoonida aad siisay darteed uga joogo. haddaba intaad kaantarool ku daydayayso, ku dayday in aad ku kalsoonaato u muujiso inuu yahay qof isagu xumaan oo dhan iska ilaalin kara. u ducee ilmahaaga ilaahay inuu xumaanta ka ilaaliyo, una muuji in aad ku kalsoon tahay oo uu yahay qof is ilaalin kara. waxaanad arki doontaa isagoo is ilaaliyey wax badan ood adigu kaantarool ku ilaalin kari weyday. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa markan iyo mawduuceennan. dhinacyo badan oo kalena waynu ka eegi doonaa marar kale. xaaladan marka ay caruurtu ku jiraan iyo sida waalidku isku fahmi lahaayeen. haddii aad ku cajabiye ama ka heshay mawduucan, like saar, siina sheer garee si u gaadho waalidiinta Soomaalidu meel kastoo ay joogaan ugana faa'iidaystaan. tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.